الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى يا مهد سكله هل كان سكو كان كيني أنغو هوري سو أقونين waxaan isku barannay ilaahay dartiis ayay tahay marka hore waxaan salaamayaa ilmo maxamuud iyo maamooyinka iyo carruurta dhan waan salaamayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto aniga ilaahay dartiis ayaan isu barannay cid uu Soomaali ka ahaa iyo meel uu ka yimid ma aqoonin laakiin dhibaatadii haysatay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qadaray darteed ayaan mataqaanaa isku daynay inaan u kaalmayno الحمد لله ان قدرت إلهي با هرتمد مال في عنا ينسو قارسيني فيسي وانو ضلبني سيكستبها اهات فيسي حق إلهي با قعنا ان إلهي سبحانه وتعالى نحو ديننا انو رحمديس واسعة وحكسيو اسلامر كان دمانت النقاس مرسيو ان رنتي ننوحو اها آد وقروح بدن اهل ايمانه إلهي سبحانه وتعالى حقر جينينا هالكاس ان انيقا مركا شخصي اهان waxaa la yiraahdaa Naasir Cabduqaadir Cadceed ama Naasir Cadceed baan ku magac dheerahay magaca awgay baan qaatay waxaan isku dayay arintaas inaan istaagno waanu ku guuleysanay dad badan oo walaalo ah oo muslimiin ah oo meel kasta jooga ayaa runtii walaalkood u soo gurmaday waana arintii Ilaahay subxaanahu wa tacaala Soomaali ugu naxariisto lacagihii marka aan isku soo xoraaminay haatan oo aan gacanta ku hayo $16,000 $4,500 حوالده waxa laga sugayaa isheeg mustaqbal oo ay ku soo dirtay Ingiriiska looga soo diray marka waxay noqonaysaa $20,500 waxa dheeraa lacag adiga kun iyo ilaa $600 ilaa $700 oo malaynayo oo Faadimo ii ogolaatay inaan ku soo baxo oo aan tigid ku soo iibsadaan kala tashtay Faadimo koronto walaashiis ayada ii ogolaatay waxay tiri in adiga timaadid ay ku qurux badan tahay taasna ogolaasho oo ka timaaday xagga walaashiisa familkooda ayaan ku soo baxay si kastaba ha ahaatee culimadii ayaa joogta waxaana wax ku qurux badan yihiin baa la yiri in sida shariicada islaamka oo adeerbiid aan naftirkiisa isku waafaqnay in mataqaana loo waafajiyo oo wixii loo dhaxal siiyo wixii inta ka dambeeyna hadda talo iyo tusaale waa la isku leeyahay waxaan rabaa marka inaan culimada ku soo wareejiyo Sheekh Abdul Aziz waa sheekhi magaalada الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابة أجمعين وبعد إلهي سبحانه وتعالى ما هذا له إسلام لماذا نقوم من نستي أيضا أيها وحي السبب تهي تكافل كاس اجتماعي جاء وناصر إلهي درتي أقوق مي إنه إلهي درتي هوشة أقوقعه وحا كالسببي إيمانك إسلام لماذا أيها السببي قرشي قبيل تونا ومصابين سيدا وإنه الشيء marka isagana waxaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ka abaal mariyo adiga iyo dhammaan intii hawsha idin kala qayb qaadatay miisaankiina xasanaadkana Ilaahay waxaan rajaynayaa inuu idin ku daro nabiguna kaleeyhi salaatu wasalaam wuxuu yiri ana wakaafil yatiimi kahatayni ayuu nabigu kaleeyhi salaatu wasalaam markii hore aan agoonta aabahood u jiranaa in aad u gurmateen aad baad ugu mahadsanaydeen oo nabiga ayaa yiri kaleeyhi salaatu wasalaam man nafasa عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة قف مسلم دبات كفيده الدنيا دبات إذا كم إذا ما أنت قيامة أياسنا دبات اللي كفيده مركي هرنا وناقص آيات كعدين مركي دنباو يسقي تي الله أتمدنا هذا وحي هذا رورسان إن هذا أقونتي سوقارتيسان أيادنا آيات أقوم هتسنتهين mar haday waxaasi ahaayeen wax markii hore isaga magaciisa lagu ururiyay oo bimaana isaga milkigiisa kamid ah waxa weeyaan hadii isagii uu tagay wax dhaxal bay noqonayaan marka sidii dhaxalka ahaa in loogu qaybiyo ayun bay noqonaysaa marka waxa la ii sheegay xaasaska in ay hadda markuu dhimanayay kulli hal xaas ay isqabeen gabdhaha kalena ay hore u kala tageen taasna insha Allah ta'ala gabdhahana kulli waa weydiinayna hadii wax intii jiradu ay saa'id ka soo noqoto jirtay ahayd iyo hadii kale ayaga ayaa inoo kala sheegay laba xukun bay kala qaadanaysaa marka hawshiina Allah idin ka abaal mariyo odayaasha adeeradooda carruurta iyo kulli akhyaarta timid in si wanaagsan loogu qaybiyo sidii Ilaahay subhanahu wa ta'ala raali ka yahay baan maaragtay dhamaanteen isku wada saacideynaa su'aashaas kaliya baan insha Allah ta'ala aan gabdhaha ay kala tageen xaajiga weydiinayna ma intii uu xanuunsanaayo xanuunku ku soo ziyaaday kala tageen mise ka hor bay kala tageen intuu caadiga ahaa su'aasha baan gabdhaha weydiinayna wallahu a'lam walaal anu xaaskiisa ugu horeeyaan ahay ilaa 14 sano kala maqana Ubax Abdullaahi Saad
ilmaha u dhalay 3 bay ahayd mid baa dhintay wiil iyo gabar baa noo aniga waxa la yiraahdaa Sudaar Axmed Jaamac ilmaha u dhalayna waxa waaye 3 wiil iyo 2 gabdhood markaan kala tagaynay wiilka 13 sano jiray wuxuu jiray 4 sano iyo gabar 8 bilood jirta haddana waxa jirtaa 10 sano wax yarbaa Safiya Cabdiraxmaan Faarax baa la yiraahdaa 3 cunug ayaan dhalay marxuunkaasna waa isqabnay markuu dhintay Allah u naxariistee haddana asay ayaa ay saaran bismillaah gabdhihii waa ka xaqiiqsanay arrintii xilli aad u hore oo fog bay maaragtay labada gabdhood ay kala tageen marka hadda waxa meesha jooga waa 8 caruur oo uu dhalay Allah u naxariistee Maxamuud iyo hal gabara oo marka uu ka dhintay wax kale oo hadda dhaxalka wax kule ma jiraan oo ama xagga awoowe iyo waxaan u jeedaa xagga isaga aabihii iyo hooyadii iyo ayeeye iyo aabad awowtoona marka thumunka baan ku dhisaynaa gabadhaas baa thumunkeeda looga saarayaa waxa kale marka waxa uu loogu qaybinayaa lidakari mithla hadil untayayni baa loogu qaybinayaa wiilku 2 qori buu leeyahay gabadhuna 1 qori bay leedahay marka insha Allah ta'ala sidaas ayaan ku dhamaynaynaa hawsha biidnillahi alkariim جزاك الله خيرا شيخ عبد العزيز آدي هذا يوم هتسن يهي هدي أسيج العنانة وحين قنيسة معناها قبضة حاسكو كدنتي إلهي هون حرست محمود وحيل هذا سديد من المركة وحا لوقي بيميل بين هذا هاي عرورة صاهرتي سديد عرور ما دام أفر قبضودي أفر ويليهين معناها وحيلنا يان قبلين هل قيب بيلنا يان ويلشنا وحيلنا يان لبجبار معناها تصالوا كلا قبضة هدي يكون شن بقول هشو ويلكو حيلا يا 6 كون يعني سيدة أي شيخ آيات وشيخي يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إن يوكل هلان ساس وكل هلان إله سبحانه وتعالى يا قدري سكستبها النقطة سيدان شيخني إن العقد هذا إحنا قد منافر كنا شنبقول مستقبل كسوجيني صايرة ده هذي أنا جو وقت يجوير درتيس أيان برنامج فاضل كرت كسلو مجال الكعيو وكنتي محمود وراشيس أصفي عن ولا تعاشي كنا صدوات الله سبحانه وتعالى أجري حسنات كسيو الله خير إلهي إذن كيسا خير بدن الله كسيو نكري اسم محمود إلهي إذن كيسا نحرتي كما الله كورابيو مدعو حنوسنا مسلمين وحصو أرورسا جزاء الله خير بدن الله كأسيو الله كأجر مسيو هذا تعزيز كسب عليه هذا المدعو إلهي سبحانه وتعالى أجر حسنات كسيو مركا واحد بن رماد علينا أنت كذب برنامج حقوق دوين أحمد عبد القادر عدد فرنسينا ويريد الدونا بها كذبنا هذا فرحان يكون يسون إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم الله ونحرسته محمد أحمد وحرمنا إن نكوري جنو لعقتي لو سأروريه صدقة وسأروريه ناصر عدد أما ناصر عبد القادر عدد سلو يقانو وحرمنا إن أويرنا قبح سعد iyo ilmaheeda inay yimaadaan waxaana lacagtaasi ku reejin doono Farxaan Shaqali hadii Allah yiraahdo oo saacad waxay heshay 4374 waxay leedahay hal wiil iyo hal gabar marka wiilku wuxuu helayaa 2916 gabadhana waxay heli doontaa 1458 maadaama arintaasi ay noqon doonto dhaxal aad iyo aad baad u mahadsantiin waxaan hadda u yeereynaa bahda kaato Sureer Axmed Jaamac soo kacay oo imaado lacagtan inaan ugu reejinaa rabnaa Sureer waxay leedahay hal wiil iyo 2 gabdhood wiilku wuxuu leeyahay 2916 labada gabdhoodna waxay heleen 1458 midii markii la isku daray tiro guud waxay noqonaysaa 5852 lacagtaasi waa sadaqa uu soo aruuriyay Naasir Cadceed
marka naasir wuxuu rabaa dadkaasi barnaamijkiisa inuu ku wareejiyo dadka qoftani waa sureer axmed jaamac waxaan rabnaa inaan lacagteeda sadaqada ku wareejino waxaa baaqi u noqonaysa 1,052 haddana waxay helaysaa 4,800 bay helaysaa marka sureer waxa weeye ammaanadaasi xifdi haddii Allah yiraahdo waxaan rabnaa inaan u yeerno safiya cabdiraxmaan waxaa ka dhintay Allah u naxariista maxamuud maxamed axmed Allah u naxariista Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ugu baryaynaa jannatul firdaws inuu geeyo sadaqadaasi waxaan rabnaa inaan ku wareejino safiya cabdiraxmaan safiya waxay leedahay 2 wiil iyo 1 gabar marka labada wiil waxay leeyihiin 5,833 gabadhina waxay leedahay 1,458 marka tiro guud lacagtaasi waxay noqotay 9,790 waxaa baaqi u ah 2,090 lacagta hadda la guddoonsiinayo la siinayana waxa weeyaan waa 7,700 marka baaqi baa u ah lacagtaasi waxa uu haya anigii iyo ninka la yiraahdo fadhiya aad iyo aad ay u mahadsantihiin meesha caruur ayaa joogta waqtiga inaan ku dheerayna ma rabno waxaan ku faraxsanahay alxamdulilah in ilaahay mas-uuliyaddaas naga wareejiyey waxaan mar labaad u mahad celinayaa dhammaan familiyada kasoo qayb galay waxaan si gaar ugu mahad celinayaa adeer biid odayaasha kasoo qayb galay farxaan dhammaan waxaanu leenahay walaalayaal iga raalli ahaada xilli aan degdeg ku jira ayaa inay ballamiyey aniga ayaana degdeg igu yimaaday insha allahu tacaala waxaana ilaahay subxaana wa tacaala idinkaga baryayaa inuu awlaadan xifdiyo in laga warhayo maamooyinka ilaahay subxaana wa tacaala wixii uu siiyey haddee maaragtay waxaa ugu biiriyaan oo waxa mataqaanaa dhaqaale ama wixii ay ganacsi ugu beeri karaan ha lagu beero ilmahan iskool ha la geeyo waxbarashadoodu waa muhiim weeye marka waxaan inaga codsanayaa in aad ilmaha wax bartaan oo waxbarasho u sheegtaan oo mataqaanaa wax aad loo baro mustaqbal yeeshaan aysan noqonina mataqaanaa dad iska dayacan hala noqdo wiilashan hadda ninkaas weynayaa ku jira barbaarka ah waxaa loo baahan yahay naftirkiisa inuu maaragtay mas-uuliyadda qaato oo uu fakiro oo meesha ku wareego ilaahay subxaana wa tacaala ajir iyo xasanaad fara badan ha idinka siiyo aad iyo aad ayaan idinka mahad celinaynaa dhammaantiin iyo fadhigaas wanaagsan ilaahay subxaana wa tacaala ha idin sharfo waana rabnaa insha allahu taala waxyar kadib inaan sawirray naga qaadno si aan aniga xusuus igu noqoto isla markaana aan ina dhaho ilaahay subxaana wa tacaala ha idin wanaajiyo jazaakum allahu khayran aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو عنا وناكسن ميل كستا joogtaan waxaan ku jirnaa barnaamijkeena oo sadaqada aan rabnay inaan ku wareejino ogoontii uu ka dhintay Allah u naxariistay maxamuud maxamed axmed oo ku magac dheeraa maxamuud koronto oo wakiil u ahaa walaalkii naasir cadceed oo lacagta soo aruuriyay lacagta waxay ahayd baaqi ka haray in maalintii dhow lagu wareejiyo lacagtii baaqiga rabnaa inaan ku wareejino haddii Allah yiraahdo intaan ku wareejin lacagtaas baaqiga waxaan rabnaa Sheekh Xasan ama Macalin Xasan inuu xoogaa yar محاضرة نوسو جديد إن شاء الله تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا إلهي يا مهد إسكاله مركا كواد وحان سدر دار من عبسد إلهي سبحانه وتعالى أو إلهي قرآن كيس أكوير سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وركو اللي نبي رميو حدماننا أدينكم موحدين أو مسلمين ما أنا وحكى لكل مننا وسبحانه وتعالى عليه نبينا نوح عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات حسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وحولي نبينا عليه الصلاة والسلام وفق بني آدم كميل والبا وتشوغ إنه إلهي كبغو حالد والبا وكسوغن يعبسد الله إنه قلبي سكوشرتو بني آدم باتا هدي حمان كاد عدنا inaad wanaag raacisid ayadaa tirtiraysa marka xumaantii waxa kale oo nabigeenu leeyahay calayhi salaatu wasalaam malakul jibriil baa wuxuu u yimid nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam saddex kelimo ku yiraahday wuxuu ku yiraahday ish ma shi'ta fa innaka mayitun bih noolow inta doontid adu waa dhimanaysaa wa ahbab ma shi'ta qofka doontid jeclow fa innaka mufaariqun bih waad faaruqaysaa qof alla qofka doontid jeclow waad faaruqaysaa waa kala tagaysaan واعمل ما شئت واحد ينتدنا عمل فل فإنك مجز به والجاج السنة مركا وحويان إن إلهي عنك بغنا سبحانه وتعالى ولكن عبد الناصرنا آدي آد بأقوم مهد علينا ووحونا سنة وفعال خيره ومحال إلى ذلك إسلام كأي محل استره خير أبدا الله سيو وحولين نبينا عليه الصلاة والسلام
laa shay-a afdala minhumaa laba shay ma jiro wax ka fadli badan buu nabigu calayhi salaatu wasalaam laba shayna ma jiraan wax ka xun ma jiraan labadaa shay maahan waxa uu yidhi nabigan calayhi salaatu wasalaam shayga koowaad oo maxaa la yidhaahdaa wanaagsan waxaa ka mid ah in dadka islaamka qofku wax taro wanafcu bilmuslimiina kelimada kale oo u xunna waxaa ka mid wadaru bilmuslimiina qofka islaamka inuu dadka dhibo maxaa la yidhaahdaa qofka dadka anfacana waxyaalaha waaweyn oo ajirka lagu helo bay ka mid tahay walaalkeen cabdinaasirna khayr badan allah siiyo walaalkeen dhistay oo muslimkaan allah u naxariisto waa la wada dhimanhayaa qof aan dhimanin ma jiro albaab moodku waa albaab furan qof walbana waa galayaa qof walba nabiyullaahi maxamed oo dadka loogu jeclaa oo ilaahay waxa uu soo saar ugu fadli badnaa baa waxaa la leeyahay waxba maa shi'ta qofkaa doonta jeclo fa innaka mufaariqun bih annagu xaggee joognaa marka waxa weeyaan cabdinaasirna aad baa ugu mahad celinaynaa khayr badan allah siiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu جزاكم الله خير شيخ حسن iyo macali xasan ilaahay xasanaad badan ka siiyo marka waxaan rabnaa intaas kadib inaan lacagta ku wareejino gabdhaha hadda gabdhaha waxaa jooga Sureer Axmed Jaamac iyo Safiya Cabdiraxmaan lacagii baaqiga rabnaa inaan ku wareejino dabcan ubax saacad way maqan tahay laakiin waxaa wakiil u ah walaalkeen faadhiga oo shirkadan hadda aan ku dhex jirno Olympic mas'uulka ah way soo socotaa wadadii ku soo jirtaa asaga siin doona lacagteeda baaqiga ah marka Sureer Axmed Jaamac waxay leedahay $1,000 oo baaqi ah marka lacagtaasi baaqiga rabnaa inaan siino marka faadhiga insha Allah tafadal adeer macna بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه waxaan halkan ku soo gabagabeynaa lacagtii sadaqada ahayd oo ilmaam maxamuud koronto loo qaybinayo baaqigii ka haray oo ah 4,000 haddana isagii baan ku gabagabeynaa halkan baan kala siinaynaa si ay u kala hayaan gabdhihii سرير أحمد جامع لعقت ترسل سرير سو كن دور باقي سو ما شت صفية أحمد تنام رمان فرحنا هذا waxay baaqi u leedahay 2,057 ubax saacad waxay leedahay lacag baaqi ah 1,054 dabcan waxa uu hayaa gacantu ku haya marka barnaamijkani waxaan rabnaa inaan ku soo gabagabeyno Cabdinaasir Cadceed ama Naasir Cadceed sida u taqaanaan inaan u sheegno in lacagta sadaqadii aan wareejinay marka sida